salaamullaahi calaykum daawadayaal halkani waa horfadhi miidiya soo ururinta iyo falaqaynta wararka caalamka waxaan idin leenahay sanad guuro wanaagsan dhammaan daawadayaasha sharafta badan ee nagala socda horfadhi miidiya dabcan hal sano ayaa ka soo wareegtay markii aynu bilownay wararka diblomaasiyadda ee caalamiga ah ee afkeena hooyo waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa muddada sanadka ah dadkii nala socday isla markaana sida tooska ugu xidhnaa channelkan caalamiga wase waxaan idiin haynaa barnaamijyo iyo falanqayn ku saabsan qaaradda Aasiya iyo dhacdooyinkeeda u dhaxeeya dalalka ee xasaasiga ah waxaanse idinku wareejinayaa barnaamijkan caawa oo igu weheliya Salmaan Xaashi kadibna waxaan idiin soo gudbin doonaa daawadayaasheena daafaha caalamka. aad baad mahadsan tahay injineer Yaasiin waa runtiina hambalyo dhammaan adiga iyo asxaabteena kale iyo daawadayaasha ee muddada sanadka inagu xidhan runtiina waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa dadka boqolaalka iyo kumanaanka aan oran karo ee meel walba inagu soo diray hambalyooyinka oo aan hubo inaynan soo wada koobi karin maadaama xajmiga dadka iyo waqtigu uusan isleekayn waxay taas muujinaysaa sida dadka Soomaaliyeed ay ilbax weyn ugu noqdeen ama dabcan ay horumar weyn ay nooga sameeyay dhinaca isku xidhka caalamka iyo Soomaalida waxaan qirayaa in aanu kala saari kar weynay muuqaaladii codadkii fariimihii iyo dabcan dadka Soomaaliyeed ee runtii doonaya qof walba inuu noo soo hambaleeyo balse waxaan hubaa in aanu badankooda wada dhageysanay annagu oo aanan balse awoodin inaan dhammaantood codkina iyo muuqaaladina iyo qoraaladiina soo gudbino qaar emailada noo soo diray qaarka noo soo diray muuqaalada kuwa noo soo diray Facebook giska noolaga soo xidhiidhay maqlayo muuqaal telefoonada iyo dabcan baraha bulshada kale kuwa nagala soo xidhiidhaya dhamaantiin hambaliyaan idin leenahay sanad guuro wanaagsan Allah subhanahu wa ta'ala sanadkiisa inuu gaarsiiyo Soomaaliya intan ka roon inagu intan ka sii wanaagsan wararka intan ka sii tayo badan caalamka sidan ka nabad iyo nolol fiicnaada aan inta adan ka gudbo Yaasiin soo noqdo qodobada ay hor dhigtay runtii arintan maadaama ay ku bilaabatay wararkan seen ku bilownay ahayd qadiyadii dalalka bariga dhexe dalka Qatar ay ku qaadeen dalalka uu hogaaminayay Saudi Arabia aan dib u xasuusino isla markaan inkastoo wararka laga dhageysan yahay xasuusino inay subaxnimadii salaadii subax ee bishii June ala saydi hore xilligii bishu ahayd June 5 2017 maalinimo isniin ah ayaa dalalka Saudi Arabia dalka isku tagay Imaaraadka Carabta Bahrain iyo Masar waxay xiriirka u gooyeen dalka Qatar waxa markaas xasuus lahaa waxyaalo yaab kale ay sameeyeen qoraalada iska soo daba dhacay wakaaladaha wararka ee afarta dal sida badan ugu qornaa waxa kamid ahaa in xiriirka diblomaasiyadeed la gooyay isla markaana loo yeeray dhammaan diblomaasiyiintii joogay dalkaasi 24 saacadood gudahoodna lagala soo baxay kuwii ka jiray kuwii kalena la buriyay laba toddobaad waxa loo qabtay dhammaan dadkii reer Qatar ee ku sugnaa dalalkaasi ayagoo loogu baaqay in dalka ka baxaan kuwa muwaadiniinta ah dalalka kale ee isku tagay Imaaraadka Carabta iyo Bahrain dalkaasi Saudi Arabia iyo Masarna inkastoo Masar aysan ku dareen qodobkaas aan ay sanayada oran dadka iyaga ka soo baxeen ama aysan dadka iyadu cayrin markii hore walow markii dambe ay waxyaalo kale dhaceen haddana saddexda dal waxay si baahsan u eriyeen dadkii isla markaana waxa burburay waxyaalo badan oo markaas nolosha ahayd waxay cirka iyo dhulka iyo badaba ka xidheen dalkaasi Qatar waxa la joojiyay duulimaadyadii labada dal kala aadayay dhammaan diyaaradihii ka gooshayay dalalkan ay aadayay Qatar ayaa la joojiyay dalka Qatar dhammaan duulimaadyadii ka imaanayay ayaa si rasmi ah loo joojiyay waxa dhacay wax caalamka dhan ka yaabiyay waxa uu ka horeeyay toddobaad ka hor ama muddo laba toddobaad wax ka yar ka hor 22 May ayay ahayd markii shirkii loo jiray American Muslim Summit ama kolonka Mareykanka iyo dalalka muslimiinta uu ka dhacay magaalada Riyadh halkaas oo uu joogay madaxweynaha Mareykanka oo markaas lugtiisa ugu horeeyay dhigay tan iyo intii la doortay halkaasi oo Saudi Arabia ka bilaabay wuxuuna judhiba madaxweyne Trump isaguna soo qoray Twitter ku taageeray arintaas waxa lagu eedeeyay inay taageerto kooxaha wax qarbuda isla markaana ay si weyn ay cilaaqaad ula leedahay dalkaasi Iran iyo kooxo kale sidoo kale waxa jiray arrimaha yaab kale ee jiray markaasi in waxyaalaha la sameeyo waxa kamid ah dalal dhowr ah xataa aan ahayn ku ayagu cilaaqaadka u gooyay walow ay koobeen ama hoos u dhigeen xiriirka ay la lahayn si dalka Jordan oo kale ay caydiyeen channelka afka dheer Al Jazeera iyadoo dalkana ay saas kula sameeyeen taa hadaynu inta kaga gudubno aynu inta ku xidhno aan eegno ama jaleecno dabcan sida aynu soo qaadano qaarad maanta waxaynu isha saarnaa laba mowduuc ayaynu kala qaadanaa bal dalalka ugu saameynta badan dalalkan qaaradda Asia oo ah beesha caalamkana marka run ay gaadho qaaradda adduunka ugu weyn ah qaaradda adduunka ugu dadka badan ah dabcan aynu iskor taagno bal qadiyadaha ku saabsan iyo dalalka ugu waaweyn aynu soo koobno dalalka markaas xasaradaha ugu waaweyn ka dhaxeeyaan ay hadeerto ay tahay in caalamku
aad isha ugu hayo Soomaaliya hadii nahanayna aynu la soconno waxa ugu markiiba la xasuusanaya qadiyada ka taagan gacankan la yiraahdo gacankan kuuriyooyinka halkaasoo bariyahan uu ka hulaaqayay markaasi xasarad xoogan balse ayaamihii u dameeyay ama toddobaadii u dameeyay dhan waxaan ka warramanay in isku soo dhawaasho iyo wada hadallo noocaas oo laga hortagay arrimaha noocaas ay soconayaan taasu ma aha markii ugu horeysay wada hadallo noocaas oo kala ah oo la yiraahdo yididiil ay leeyihiin nabad bay keeni karaan ama gacanka kuuriyooyinka labada kuuriyo oo tan iyo sanadkii 1947 xolaadu ka dhaxaysay ilaa 1950 iyo 1953 dagaal lagu hoobtay oo Mareykanku ka qayb galay ay wada galeen ayadoo aysan jirin haba yaratay heshiis dhab ah oo labada dal dhaxmaray marka laga reebo colaadaas oo laga gaaray xabad joojin iska markaasi aan caga badan ku taagnayn ilaa iyo waagaasna colaadu ay sii horeysay waxa haatan muuqatay in arintaasi halka dhaqdhaqaaq ka bilowday balse dhaqdhaqaaqan diblomaasiyadeed kan oo kale sanadadii 1994 iyo 1989 labadaba uu bilowday isla markaana way burbureen waxaana haatan uu kamid yahay xaaladaha caalamka isha lagu hayo ama mar walba la xasuusto inay colaad keeni karaan qadiyada kale ee taayna xasuusto waa qadiyada u dhaxaysa labada dal ee hubka nuclearka ku xambaarsan ama ku hubaysan waa dalalka Hindiya iyo dalkaasi Pakistan oo ah dalalkan koonfurta Asia ku yaala oo daris ah labada dal ayagana qadiyadoodu waxay soo bilaabatay markii Ingiriiska oo la aaminsan yahay in gumaystuhaas uu kamid ahaa laf dhabar u yahay dhibaatooyin badan oo adduunku maanta isku hayaan oo ay ugu weyntahay xuduudaha markay timaado dagaalada caalamka dhanna waxa inta badan sababa dhul la isku qabsado iyo xuduudo la isku qabsado wax lagu murmo maadaama inta badan dalal isku mid aha ama dadyo isku mid aha uu gumaystu intuu kala googooyay markii dambe uu kala saaray qabaa'il iyo diin kadibna hadhowto ay xasaradu halka ka bilaabatay ilaa 1947 ilaa 48 dalalkaas saddex jeer ayay isku dhaceen waxaana xaaladoodu ay tahay mar walba mid taagan waxayna kamid tahay goobaha u dhaxeeya gaar ahaan gobolka Kashmir meesha ugu khatarta badan caalamka oo ilaahay hadarta qori caarada la soo taagan yahay dalka Ruushku wuxuu leeyahay saaxiibo badan oo caalamka ah waana dal kamid ah dalalka adduunka ugu saameynta badan haatan dalalka ugu dhow dabcan inteenan soo qaadan oo qaybta labaad ka soo qaadan doono dalalka si isugu dhow yihiin dalalka laakiin si xagga xasarada ugu weyn haatan ka dhaxayso Ruushka waxa weeye dalkaasi Mareykanka oo loolan dhinaca dhaqaalaha dhinaca hubka iyo dhinaca siyaasadda iyo sirdoonka ayay ku wada jiraan waxaana loo arkaa in dagaalkii qaboobaa ee kolkii hore lagu kala adkaaday kaasoo sababay in midowgii Soviet laga turturoonaado oo gaashaanbuurtii loo jeeday Warsaw ay jilbaha ugu dhufato NATO dhulka iyadoo aan wax dagaal oo saddexaad adduunka ka dhicin haatan dib ayuu u soo dabcan u soo noolaaday waxaana soo dadajiyay Ruushka oo dib isku cimaamaday isla markaana noqday awood buuxda oo caalamka hadeerto dib dhaqaalahaan iyo tamar ahaanba dib u soo kaartay kadib burburkii baahsanaa ku yimid Ruushka haatan wuxuu diyaarinayaa arrimo badan oo la yaab leh way ka bitahay saldhigyo waaweyn oo caalamka ka samaysto inuu soo saaro hub aad u culus iyo inuu dabcan soo markaas horumariyo caaqaadka uu leeyahay wadamada intuu gacanta ku hayo haday dhacaan ama yihiin kuwa dhaca waqooyiga America ama Latin America aan iraahdo ama haday dhacaan Europe haday dhacaan bariga dhexe iyo haday dhacaan Asia qaybta labaad baynu ku dul istaagi doonaa dalalka kale ee ayaguna runtii kamid ah Asia Europe-na saameynta kale salaam dalka Turkiga oo kale wuxuu dhacaa labada qaaradoodba saameyn buu ku leeyahay waana dalka kaliya loo yaqaan inuu ka wada tirsan yahay marka mapka saa u eegto waa dalka kaliya ku tusaya inuu Europe-na ku yaalo Asia-na qaaradda Asia-na ku yaalo dalkaas wuxuu kamid yahay dalalka adduunka isaguna hadda istiraatiijiyad ahaan dhaqaale ahaan iyo saameyn ahaan ugu saameynta badan dalalka inta badan dalkaas saaxiibka la ahaa wuxuu ahaa dalalka gaashaanbuurta NATO oo ahaa dalka labaad ee ugu ciidamada badan haatan waxa muuqata inay qaniinsan yihiin dalalkaas oo ay kamid tahay Mareykanka oo haatan diidayba inuu ka iibiyo hubka gaar ahaan diyaaradaha F-35 dibna u dhigay isla markaana ka lug jiidaya inuu arrimahan sameeyo ayadan halkaasi waxa ka taagan buuq xoogan oo caalamka wax badan ka bedeli doona Yaasiin aan markale kugu soo celiyo adiga iyo asxaabteena qaybaha dhammaan sii wado imikana waxaan idin soo gudbin doonaa daawadayaasha caalamka oo barnaamijkan caawa qayb ka ah عليكم دمان أمد الصوماليات ميل والبقى جوبتان وحن إذن كسلاميا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل كان وحا هنبليو وقدريا هورفردي ميديا وحن ليا كان سند كيسا كلا الله نيو غارسيو دادالك فرح بدن أمد الشعب كصوماليات وعاد أسو جيديسان ورركا عاد أغسو أرورسين دونة دافه هذا كالدوبان adoo ininka ugu turjumaya afka hooyo waxyaabo badan baan ka faa'iidnay waxyaabaha aan ka faa'iidnana waxay tahay caalamka qadiyadaha meelaha ay kala marayaan ininka ugu soo tabinayo afkeena hooyo af Soomaali ah aad baan ugu faraxsanahay horumarka wanaagsan ee aad wadiin waxaan idin leeyahay dadaalkiina sii laba jibaara
ilaahayna hanila garab galo dhammaan shacabkiina aad u adeegisiin waxaan idin leenahay allah niga jaasmariyo waxaan idin leenahay oo kale dadaalka halkaas uga harina barnaamijyada inaad sii kordhisiin oo waxyaabo badan oo cusub aad kusoo kordhisiin ku dadaala mar walbana waa nila garab taagana haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed dadaalka faraha badan ee aad shacabkiina u wadiin inkoo afka Soomaaliga hooyo aad ugu turjumisiin run ahaantii habeen walba waan la socdaa wararka Horfadhi Media iyo barnaamijyada Horfadhi Media wararka caalamka soo kordhay dalkeena hooyo haday yihiin iyo caalamka dacaladiisa kala duwan wararka aan nooga soo ururisiin waxaan idin leenahay sanad guuradiina aad baan igu hanbaliyeenayaa alfa mabruuk salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu وأنيقو نيغسو هنبليانيو دالك مصر غارهان عاصمة قاهرة ألف مبروك وياسين عبد علي وإن الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقعي وحنا جابنا دعالي جامع قدري وحكونا هاي وضع قدر وحنا halka salaam ya dhamaan baxda Horfadhi Media engineer Yaasiin Xaashi iyo dhamaan haweenada kale Horfadhi Media aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan idin soo dirayaa salaan aad u qayb badan waxaan idinka mahadcelinayaa runtii hawsha wadaan ee runtii maartay bulshada Soomaaliyeed la wadaagaysaan soo ururaysan afka hooyo aad baan idinka mahadcelinayaa dadaalka wadaan nimankina dhalinyarada waa muhiim in lala socdo siyaasadda caalamka halka ay wax marayaan danaha kala leeyihiin dawladaha caalamku sida ay isbedelayaan iyo arrimaha siyaasiga runtii adduunka ka dhacaya in maxay haytooy aynu ogaana aad bay muhiim u tahay waanan idinku bogaadinayaa runtii haddii aan runtii tihiin ragga dhalinyarada ah run ahaantii sanad baa laga joogaa waxaan filayaa in la xusayo sanad guuradii ay kasoo wareegtay intii aan hawsha bilowdeen oo aan odhan karo runtii waxay ahayd arrin sanadka aynu runtii soo wadeen ama soo daadihinayseen shakhsiyan anugu waxaan ka faa'iiday runtii wax ayaabo fara badan baan ka faa'iiday runtii sababtoo ah waxaan daa'isi baxay ama si easy iftiimay siyaasadda caalamka halkay marayso sida wax isu bedelayaan sida maalina loo kala guurayo maalina la isku soo noqonayo danaha khaaska ay maaragtay danta isku khasbayso iyo danaha la kala leeyahay runtii waxaan odhan karaa waxaan ka faa'iiday waxyaabo badan ima dhaafto oo habeen walba waan runtii daawadaa waxaan ugu xidhanahay si joogto ah baan ugu xidhanay ilaa maalintii la bilaabay ilaa maanta mana aha maalintii koowaad aan ka dhigto afkaartayda iyo fikirkayga runtii marar hore badan ka dhigtay arrintaa runtii ka socota haddii ilaahay beenankada leeyahay caalamka ee ah runtii noo soo ururinaysaana aad baan idinkaga mahadcelinayaa injineer Yaasiin iyo Xaashi iyo dhammaan howlwadanada Horfadhi Media oo imika diyaan oran karo wuxuu soo bedelay TV aad iyo aad baan idin salaamayaa aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Axmed Cabdullaahi jooga magaalada Hargeysa waxaan aad ugu faraxsanahay ka qayb qaato hambaliyada Horfadhi Media waxaan ku xidhnaa muddo sanada laga soo bilaabo 8 bishii 6 2017 sanadii tagtay maalmaha kamid ah helayaanoodeedii wararka qadan wallahi waxyaabahan ku xasuusto waxa kamid ah TV-ga Horfadhi Media inuu noqday TV-ga iga kafaala qaaday idaacadaha inta waqti ku dhigan jiray dhageysigooga ee Safiyo iyo BBC-da kaasoo si kooban siiya maxay heetooy wararka iyo diblomaasiyadda caalamka si kooban kuwa internationalka waxyaabahan ku xasuusto waxa kamid ah inuu iga kafaala qaaday ku koobnaanta wararka localka ah ee iska khilaafsan ka hadlo Soomaalida ee isqabqabsigooga wax badan oo nooga iftiimiyay si u socoto siyaasadda adduunku aad baan idinku hambalyeynaya waxaan idin rajeynayaa TV dhammaystiran oo satellite-yada laga daawado noqotaan hambalyo dhammaan ku xiran TV-ga Horfadhi Media iyo maamulka Horfadhi Media engineer Yaasiin iyo Xaashi ka yihiin waxaan leeyahay hambalyo sanad guurada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحالي رادة أحمد جمال محمد وحان كنا راهي دلك كندا مقالة هاملتون آد أيان رنتي آن السلامية انجنير ياسين iyo Xaashi wararka aad soo saartaan ama waxaan muddo 12 bilood ayaan ku xirnaa Horfadhi Media waana isha kaliya wararka rasmiga ah iyo sida caalamka macnaha uu u socdo
iyo wax walba aan ka daalacanayna waana aad iyo aad ayaan ku mahadsantihiin waana ku faraxsanahay runtii waana isha kaliya aan wararka caalamka aan kala socdo waxaan leeyahay insha Allah taala arrin yani waxa haysaan shaqo culus ayaad noo haysaan insha Allah taala waana ku mahadsantihiin waana idin xambalyeynayna waxaan leeyahay halkiina ka sii wada insha Allah taala waxaan rajaynayaa mustaqbalka inaad maaragtay wararka iyo waqtiga sii dheereen doontaan marka wallahi aad iyo aad ayaan mahadsan bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Ismaan Maxamed Geedi oo ku sugan wadanka Kenya ma sha Allah ayaan leeyahay wararkiina aad iyo aad ayaan u taxanahay si fiican ayaan la socdaa habeen ima dhaafo laga soo bilaabo ونقبتين سارة وطن قدر إله هذا ولا صعدة واحد بدن أيام فائدة واحد فيهن دليل الصوماليات أو سلقانتي صومال وحوين أيات وهيسان أبال أيام كهينا أنا قلنا واحد نقول فتين وركنا نسي شركة نسيفة في ندخل ودقنا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرفض ميديم آدي أهل السلامة مقعيق وعبد الرحمن عبد الله الصلاة وحاكم الله وطن كسود أفريقيا إنجنير ياسين إنجنير هاشم آدي أتسلام كبيدان السلامة بقولك بقول دمان ددوينها يحاول دتك كحيران أرفض ميديم أيان آدا أو همبلينا سنة جوردي كسوركتي maalinta ay bilaaween daawashada yani arfadha medium waxaa kamid ahay dadka yani arfadh yani farqu tiriska oo yani sanadka uu dhamaaday si sax ah uu daawanayay way waxa xasuustaa habeenii maalin ano yani u soo jeeda habeenka aawa yani suga mar walba yani youtube kunta soo galo leh waxa ku dhacay maanta yani waqti badan ku bixinaa si uu heli lahayo aawa ama yani u daawalayo waqtigaas dhamaan waxaa ugu hambalyeynaa dadka shaqaalaha ka shaqeeyo yani baahda qaybta horfadhi medium yani dadaalka ay muujiyeen oo yani waxaa sanadka aad iyo aad ay qiimaha badan ay sameeyeen shacabka daawadana waxaa leeyahay yani ku dhiiranaada oo yani mar walba waqti badan ku bixiya waayo yani waa meesha hadda ugu xiisaha badan waqtiga badan lagu bixi karo yani wax badan laga faa'iidayo waxaa leeyahay adinkana dadaalkiina 100% si loo wajibaara waxaan hambalye mar walba nagu hambalyeynaa dadaalka asuubidena yani faraha badan dhamaan horfadhi medium shacabku waxaa leeyahay ku xirnaadaana waqti badan ha ku bixiyaana hana sii shargarayaan sida looga faa'iideysto dad badan u daawadaan aad iyo aad aan islaama xaashi iyo injineer Yaasiin mar labaad mar saddexaad media TV-ga caalamiga aad baan u salaamanaa injineer Yaasiin iyo dhammaan ehelkiisa dhammaan dadka aad baan u salaamanaa waxaan ka baranay horfadhi media ayaaba aad fara badan haday haato tacalluqiga inaad la socoto wararka iyo faafinta caalamka iyo halka dunida kala maraya iyo halka wadamada kala maraya inaad la socoto waa muhiim waa qalbiga koriya horfadhi media production la ogaado aad baan dhammaan u salaamanaa afka Soomaaliya ku hadasha waxaa leenahay dhammaantiin la reebayn kaliya horfadhi media waa TV-geena website-geena كنا وحنا ورمر وناجح إذا إنتوا واحد كل يوم إنتوا سجال بنوطة وأنا لك السلام يا إنجنير ياسين حاشي أجا مختار عبد الكنول وطن كالنروي وأنا هم بليبي بقادين عودين يسوع مرسينيا سنة جولدي كسور يكتب في الميديا وعن كمان كيما هذا عجينيا وقت كوبان غير أوري لو تنك الدقيقة هذا مدة الصومالية وصو كوبتين أخبارات كعالمك مدة الصومالية نبيل كستي جوغان ويكفى إليستين أخبارات كعالمك أي كيلي كرام فرد ميديا قد ما سنتين كذلك نمشي لكسي ودا أنا دي مهدو علينا والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دكتور ياسين دكتور حاشي وإذا وذا السلام ويلا شيء دي أدي أدبروفي عنها والله ذناي ما دام الله عصري 4 دقائق يوم موقال وكو قصبنا هواي واحد إذا كان لو كوين أو كبر ويزيد عينينا أخبارت والله صعنا سفي عم بالله الله صعنا سنة جوريا وعن بالله يعني أنا ومقعي اللي هذا محمود معلن عرتن وعن جوا أمريكا مقالة ميشيغان وإذا وذا السلام يا خير عفمات بان ذي الجينيا إسلام أيي أنا أذيك بإسوفرتي أو إذا إذا كنت حن
waxay tiri wiilkayga mar walba wuxuu yidhaahdaa sheergaraynta waa xaggiina anna wax uma sheergarayn aqaanay tiri wiilka hay cafiyey tiri wax uma sheergareeye mar walba waa xaggiinuu yidhaahdaa duqdaas ayeeyadaana inaa cafisaa lagaa rabaa sida kale waa la fiican yahay alxamdulillahi rabbilcaalamiin akhbaartii iyo ugu dab akhbaaraha haddaa waxaa idinka xasuusiya waxaa ka mid ah dadkii xanuunsanaa oo marka turkiga aad ka hadlaysay kugu qabsaday oo aad kala hadlaysay oo aad lahayd turkiga aniga waxaan u hayaa akhbaar ahaan baan u sheegayaa dadku waa wada jiran yahay inta caafimaad qabtaa ka badan oo idiin ducoynayso khayr allah idin siiyo wiilasheenni sanad guuryo wacan sanadkaan sanadkiisa cimri iyo caafimaad allah idinku gaarsiiyo iyo intaan idinkoo kasii fiicanaan ilaahay idinkaga rajaynaynaa aniga iyo intaan wakiilka ka ahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh doctor xashi iyo doctor yaasiin waa salaamay horfadhi midiyow asxaabta ku jirto qaraabada ku jirto ehelka ku jiro kulligiin waa idin wada salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaantiin aad iyo aad baan idiin salaamayaa bahweynta horfadhi media anigoo magacaygu yahay cabdimajid nuur cali oo kasoo hadlaya gobolka awdal degmadiisa boorama inta soomaalidu degto gaar ahaan somalilan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaya sida ugu quruxda badan ee wararkaad noogu soo tabisaan ee ugu sharafta badan aniguna waxaan ahay mid ka mid ah dhegeystayaashiina haddii jar ku xidhan bahdiina horfadhi media aad baan igu mahad celinayaa congratulation hambalyo baan leeyahay hore loo soconayaa dhammaantiin aad baan idigu mahad celinayaa yaa saxaabta kale ku xidhan bismillaah magacaygu waa xasan jooga wadanka jarmalka waan idin salaamay horfadhi media wariye xaashi iyo injineer yaasiin salaan wallaahi aan la qiyaasi karin waxaa weeyaan kalgacalka iyo taageerada maxaan kulada ku dheehnayaan idin salaamay saaxiibayaal taageerayaashana waan idin salaamay wallaahi haddaan usoo laabto horfadhi media waxaan ku taxmaan malaynhayaa maalintii koowaad maalintii labaad labada warba waan isku darsaday inta ka dambaysa maalin qura ima dhaafin oo waxaan ku uri saan ugu xisaabtan abid waxaan ugu xisaabtan horta noloshayda ma soo marin taa macnaheedu waxa weeyaan tayada iyo warkaasi horta baahi horta lamaynaanba soconinba haddaynu soomaalida wax war diblomaasiyada warar caalamiya lamaynaa haysaninba nin horfadhi waxaan ku uri waa warbaahinta caalamiga ee dhan kasta ee xaqiiqda niyow taageero buuxda horfadhi waan taageersanahay saa ku socdaniyow waxaan ku uri madaxa saaxiibaya بسم الله الرحمن الرحيم magacay waa Cumar Maxamed waxaan joogaa magaalada Garowe halkan waxaan hambalyo uga soo jeedinayaa iyo mahad celin bahdan barnaamijka horfadhi media sanad guuradooda koowaad iyagoo hadda maxaan kula u dabaaldegaya aan malaynayaa bixi ku beegan tahay 5 bisha runtii waa barnaamij aad loogu baahnaa oo nimanka dhalinyarada aad bay u mahadsan yihiin waxay buuxiyeen kaalin barnaamijyada oo loo baahnaa runtii saxaafadu inta badan saxaafada Soomaalidu waxay xoog saartaa gudaha iyo wararka gudaha iyaguna runtii waxay soo kordhiyeen kaalinta ah inay xogaha siyaasadda caalamku si u shaqeyso ay u soo gudbiyaan bulshada Soomaaliyeed runtii waa barnaamij aad loogu baahnaa kaalin aad buuxiseen weeye oo runtii maxaan ku raadayay barnaamij aad baa u mahadsantihiin ugu mahadsantihiin barnaamijkaas aad soo kordhiseen runtii barnaamijkan waa ku taxnaa ilaa iyo sanadkii hore bishii Juun Ramadaantii ayaan bilaabay wararkii ugu horeeyay aan daawado waxay ahaayeen markii qoladan xulafada Sacuudiga ay gooyeen oo maxaan ku raadayay ونقطتين كسر رجال قدر يصير كلا ورارك حسدي بريء كتاجنيد إن عوقي كوريا يحرفض أمريكا رنتي لا وهو تحنا برنامجك وأنا حنقول هذا مرة ولا سعودي إلى أمر اللي حول لقدي قال بقي أنت باقي هرو كأها حنقول هذا هالقي ودير أنتي عاد بمسين للياس برنامجك هذا حنقول مسكحة توتيي وبرنامجك أو مدة أسوق فردي وحلي هالك كسي وذا وبرنامج أضلوا بهاي هي هكذا لنا runtii waxa weeye raadka waxa laga faa'iidi karaa sida caalamku u shaqeeyo iyo inagu saynu uga duwanahay runtii ilagu inta badan waxaynu ku mashquulsanahay waxyaabo aan maxaan ku raadayay aragti dheer si lahayn oo iska qabsi qabiil ku dhisan iyo reer iyo goboleysi iyo wax la mida runtii caalamkuna waxa weeye danihiisa iyo wuxuu ka fikirayaa inta badan maxaan ku raadayay mustaqbalkiisa fog runtiina waa barnaamij maxaan ku raadayay laga faa'iidi karo wax badan oo dadku ka kororsanayaan wadamada caalamku say u shaqeeyaan siyaasadooda waxa ka mid ah runtii السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجيء وعلي عبد الكريم عبد الله جوبر تجمع أبوي شباب الله صوماليا وحلايا كل ميديا همبليو إنجنير ياسين يحاش وسلام يا حلايا خلاص لمستا إيو وركي وعرض إيو إنك وين جاب بغني صوماليا ما دام نهار صوماليا أنا معنا عادي أنا أقول بغني وركب بالموازين تا إيو أنت وإحنا دونك عالم كوالف عنا كورتي معنا ما نسعن أدبا ولا ماشي نكسي وضع ما دام كان سنة في سكيلا بس براقان وكذي على ما عالم كان أدبا ومتغير معنا إيش يعني
in macnaha ii sheeg aan halaadhigtiin waan ku taageerayaa waan u mahad celinayaa wasalaamu calaykum tacaala wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkan waxaan hambaliyo iyo bogaadin baan u marinayaa hawada urfadhi media oo naga qabtiray wararka adeerna la soconay muddo sanada urfadhi media waanu hambaliyeynaa iyo labada injineer ee kala injineer Xaashi iyo injineer Yaasiin oo wararka iyo xaaladaha adduunka naga qabtiray nagahana noo furay aad iyo aad baan idinku hambaliyeynaynaa urfadhi media ما شاء الله سند guuradina aad iyo aad baan u xusaynaa idina taageersanahay in sha Allah waxaan ka mid ahay dadka aad iyo aadka ugu xidhan urfadhi media mar kasta iyo goor kastaba waxaan joogaa gobolka Sool degmada Kalabayd ee koonfurta gobolka Sool aad iyo aad baan ugu hambaliyeynayaa urfadhi media taageerada Turkigana waan ka wada soconaa iyo dawladda Islaamiga awoodda leh ma sha Allah Erdogan Allah guuleeyo doorashada 26 bisha June ma sha Allah injineer Yaasiin iyo injineer Xaashi baad baan idinku hambaliyeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh marka horeysa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa hadle marka labaad waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ana magacaygu yahay Sheekh Maxamuud Cabdiraxmaan Maxamuud Master Tulux aad baan ugu hambaliyeynayaa urfadhi media iyo bahda ku xiran iyo injineer Yaasiin iyo Xaashiba waxaan leeyahay sanad guurada ka soo wareegtay hambalyo marka usoo degan shakhsi ahaanteeda kale waxa ay dadka ku xiran kuna xisaabtama warkan aan dhageysan warkana waxyaabo kale aan dhageysan iyo warar kale laagaysa warka dhageysta aadna way nagu hambaliyeen kale shakhsi ahaanteeda waxyaabo badan ay iga bedeshay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa iska mahad iskale waxyaabo iga bedeshay waxa kamid ah in caalamku meeshu marayo iyo xulufada iyo meesha dadku hamiyo iyo Soomaali ahaanteena waxaynu ku hamiyeeno hankeenu meeshu yahay iyo hankeenu intuu leeyahay in xogaa bariisa karsano oo inuu yahay hankeenu bis wax kale aanu dhaafsiisnay ayaan ka faa'iiday iyo caalamka hankiisa iyo meesha la kala marayo iyo xulufaysiga iyo isbahaysiga aadna waa inay salaamayaa injineer Yaasiin iyo Xaashi mar labaad iyo mar saddexaadna waxaa leeyahay hambalyo aadna waa mahadsantihiin shukran بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته urfadhi media رمضان كريم رمضان مبارك مختار كاسو هادلaya magaalada Oslo Norway aad iyo aad baan u faraxsanahay barnaamijkeen urfadhi media iyo shaqada oo haysaan bulshada waxaan ku xidhnaa ilaa maalintii la bilaabay ilaa hadda xaqiiqatan wax badan buu noo iftiimiyay waxaan codsan lahaa in wararka la sii badiyo waqti dheer la sii geliyo inkastoo hawshu ay aan ahayn hawl sahlan in warar la diyaariyo haddana in la sii kordhiyo ayaan codsan lahaa xaqiiqatan waxaan filayaa inaad tijaabadii ka gudubteen insha allahu tacaala halkaaga sii wada u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waanigu ah Yaxya Abuukar Ibraahim waxaan joogaa dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Togdheer ee magaalada Burco marka hore aad waxaan salaamayaa urfadhi media iyo dhammaan shaqaalahooda wararka tayada leh ee inoo soo gudbiyaan kulley aad iyo aad baan idila soconaa warar xiiso leh ayay noo soo gudbiyaan wararkiina oo leh taariikh wararka YouTube la soo geliyaa ma laha taariikh laakiin qodobka weyn waxa weeye inuu taageero wararkiina oo leh taariikh iyo warar saxan iyo warar aad u xiiso badan oo laay aad iyo aad baan islaamay wadika meelina wararka in ka baran waxaan ka codsanayaa sida aan ugu soo wadaan ilaahay ka walmay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa Cali Xuseen Dacar waxaan joogaa Kenya gaar ahaan haryaha qaxootiga ee Dadaab khaasatan Ifo maan la soconin
caalamka waxa ka jira oo kaleeta sida dhacdooyinka oo kale sidii caalamka wadamada waaweyn G8 oo kale sidii isku hordinayaan ma la socon jirin hadda intaan horfadhi media aan YouTube-ka aan kala socdo aad baan waxaa u malaysaa inaan noqdo nin wax buu fahmay waxyaalo badan kala arkay yaan wada waa hore iyo inta aan daawaday farqi weyn baa u dhaxeeya waayo waxaa la dhahay nin waay arag iyo nin aan waay arag ahayn oo kala yihiin sama marka waxaa u malaysaa in il dhanba iga baxday caalamka sidii u socdo sidii la isku hordinayo sidii wadamada awoodda badan sidii wax u kala qaadanayaan Mareykanka sidii maxay heeday hadda wadamadan Yurub oo kaleeto sidii go'aanka ay uga gaareen xagga ganacsiga kaleeto dharbaax weyn inay ku dhufanayaan aniga gurigayga jooga ma loo arintayada reer galbeedka waxa ka dhacayo dhan iyo wadankayga Soomaaliya iyo kan Kenya aan ku noolahay wixii ka dhacayo dhan macal Ethiopia Afrika Aasiya inta qarada adduunka aniga gurigayga fadhiyaan wax walba la socda magaalada waxaan aaday aroortii aniga warkiyo wixii caalamka dhaco dhan anoo ka dheregsan banaan صراحة قف واحد يودي وحنا أول شيء كره واحد كده عالم أنت إذا واحد يجي سعيدي أن كحرنا وصاحب كيا غرفة الميديا ولا لي الواحد اللي أنا بدي ذا ليسان أدبر ودي ليسان هرمل في عم بعد قاري تنت إن شاء الله بدنا هذا لذلك نسيله والله الله يذن قرب إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وحناك السلام يا أما أمة المسلمين توحن لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدو كلامكم وحنا ما مقيا بعد هرفة الميديا وحنا لي رمضان كريم أما أمة المسلمين هذه أنك الله قضى بقى تلك السعودية هي تلك قناة waxaynu ogsoonnahay in dalka Sacuudigu uu cunaqabateyn saaray dalka aad u yar ee dalka Qatar taasoo uu ku fashilmay cunaqabateyntii hore isagoo hadda raadinaya muxuu ahaayay inuu talaabo cusub ka qaado wuxuu sameeyay wuxuu ka hor istaagsanayay doonayay inuu ka hor istaago suubaynta ay sameynayso dalka Qatar taasoo hadda ka iibsanaysa hubka lidka diyaaradaha dalka Ruushka sidoo kale dalka Ruushku galaalka uu ku leeyahay bariga dhexe wuxuu doonayay inuu sii xoojiyo sidoo kale uu hubka ka iibiyo dalka Qatar sidoo kale Mareykanka ayaa Sacuudiga taasoo Mareykanku uu dabada ka soo riixayo dalka Sacuudiga oo uu rabo inaan Ruushku oo aanu galaalka siyaasadeed ku yeelan bariga dhexe halka lagu legdamayo ee lagu tartamayana ay tahay bariga dhexe siyaasadda reer Yurub iyo reer Ameerika Mareykanka iyo Ruushka ay siyaasadoodu ka socoto waxaan welibana halkan muxuu ahaayay fariin uga diray ummadda muslimiinta inay muugsoon yihiin oo ay waxyaabo badan kala socon muxuu ahaayay wararka iyo warbixinaha bariga dhexe taasoo muslimiin badan ay ku dhibaataysantay sida Falastiin oo aynu dhibaatadeena ka warhayno waxaan dhammaan halkan Ramadaanta uga ducaynaynaa insha Allah in Ilaahay ka furdaamiyo khayrna ugu dhameeyo dhammaan colaadahana ka qaado dhulka muslimiinta wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh